Soo saaxiibayaal mar kale muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ama kaga hadlaynaa nolosha soo galootiga ama qaxootiga wadamada Yurub gaar ahaan Jarmal. Waxaan hubaa ama aan aaminsanahay muuqaalkan haddii aad dhamaystid inaad heli doontid xog waafi oo dhammaystiran oo ku saabsan macluumaadkaas. intaan muuqaalka qaybihiisa kale u gudbin saaxiibayaal haddii aan nagu cusub tahay wax ka rajaynaa nagu soo biirid oo subscribe aan tiraadid channelka mar walba waxaan kaga hadalnaa vlogska iyo ka faa'iideysiga teknoolajiyada labada haddaa xiisaysid inaad wax asxaabteena ka mid noqotid baa ku rajaynaa. haddii aan muuqaal ku soo laabano marka laga hadlayo wadamada Yurub waxay ka mid yihiin meelaha qaxootiga waqti dheer ay soo galiyeen gaar ahaan 10 sano u dambeeyay waxa la sheegay in aad iyo aad ugu soo bateen soo galootiga ama qaxootiga. Jarmalkuna wuxuu ka mid yahay meelaha qaxootiga sida aadka u daneynayo 10 sano u dambeeyay. Warbixin aan arkay oo ku saabsan soo galootiga qaxootiga Yurub 2024 waxay ku sheegeen in 700,000 qof dad kor u dhaafay ay soo galeen. sidoo kale warbixintaas waxaa ku xusnaa qaxootiga sharciyada laga siiyay Yurub iyo wadamada kala siiyay oo kala horeeyaan. haddii aan soo qaadano saddexda wadana markaas ugu sharci bixinta badnaa waxay ahaayeen Jarmalka, Faransiiska iyo Spain. Jarmalka ayaa wuxuu bixiyay 150,000 oo sharci sidoo kale waxaa ku soo xigay Faransiiska oo 60,000 oo sharci bixiyay iyo Spain oo bixisay 50,000 oo sharci. haddii aan dhugno dhanka Soomaalida waayadan dambe Soomaalidu waxay aad iyo aad iskaga dhiibeen wadanka Germany marka waxaan fiirinaa fursadaha iyo caqabadaha ka jira Germany ama Soomaalidu ay kala kulanto. muuqaalka waxa ay nagala qayb qaadan doonaan Yaxya la yiraahdo oo saaxiibkay oo waqti badan Jarmalka joogay. waxaan weydiin doonaa fursadaha haddii haato sharciga, shaqooyinka, guryaha iyo caqabadaha guud ee jira ee dadku wajahaan. waxaan jeclahay saaxiibayaal muuqaalka intaan u gudbin inaan la wadaago bangi aan isticmaalo bangiga magaciisa waxa la yiraahdaa Wise. runtii aad iyo aad baa uga helay adoo wax weeye wadan jooga wadan kale akoon bangi ka siinaya sidoo kale wuxuu ku fiican yahay haddii aad rabtid inaad meel kale aado kale ma u baahnaa lacag sarifta automatically asaa ku sarifaya waliba qiimo hoose buu kugu sarifaya kale haddii rabtid inaad UK ka baxdo oo Yurub aado kale ma u baahnaa lacag sarifta automatically asaa ku sarifaya haddii Yurub joogto xataa laga yaabo in Scandinavian-ka sida Sweden oo kale lacagta koronta asaa ku sarifaya haddii meel kale joogto laga yaabo xataa East African aad Kenya oo kale automatically ma u baahnaa lacag sarifta asaa ku sarifaya wuxuu kugu sarifaya Kenyan shilling. waxa intaasi dheer haddii rabtid inaad akoon wadan kale ka furatid wax hal daqiiqo yar buu kugu furayaa. linkiga bangiga saaxiibayaal waxaan dhigayaa muuqaalka description-ka sidoo kale qaybta comment-ga aan dhigayaa halkaas ka raaci kartaa. haddii muuqaalkan ku soo laabano saaxiibka Yaxya waxaan weydiinayaa Jarmalka wuxuu kaga duwan yahay wadamada Yurub qofka markuu soo galooti cusub yahay. dalka Jarmalku dalalka kale ma ka fursada fiican yahay markii loo eego qofka qaxootiga ah ama qofka soo galootiga ah. dadka badankoodu waxay dhahaan waxyaabahan bayna ku xushaan dalka Jarmalka qofka markuu soo galo horta kan baa la geeyaa hooy u dego oo ku noolaado marka dadka qaarkood duruufo gaar ah loo tixgeliyaa maadaama ama waayeel yihiin ama xanuunsan yihiin guryo caadi ah la siiyaa laakiin sida caadiga ay u badan tahay qofku intuu sharci la'aanta yahay kaamka ku noolaada hal qol baa kaliya la siiyaa marka qaarkoodna laba qof baa la dejiyaa lacag deeqta baa la siiyaa oo 460 euro ah markuu week ama laba week joogo hore waxa laga geliyaa iskool luqadda oo luqadda barto 3 bilood marka ay ka soo wareegto asuulkii ama codsiga qaxootinimada ee uu dalbaday waxa waajib ah in shaqo loo saaro warqadiisa yar haddii aan loo saarin isaga tagayo soo saaranaya awslaanta bay horu aadaya haddii uu sharci helo guri baa la siinayaa lacagtiina 100 baa loogu kordhinayaa cayrta hadduu weli sii qaato uusan shaqo aadin 560 euro looga dhigayaa marka sida warbixinta ku arki doontaan Jarmalka Yurub badankeeda wuxuu ka gedisan yahay qofka asagoo bilaa sharci ba awood u leeyahay inuu shaqaysto. qofku markuu dalka Germany imaado ma shaqayn karaa inkastoo qofkaasi dalka Jarmalka ku cusub yahay haddana markii uu dalbado codsiga qaxootinimada ee asuulka 3 bilood kadib wuxuu xaq u leeyahay in warqadiisa yartahay oo wato shaqo loo saaro haddii aan loo saarin oo isaguna inuu shaqeeyo uu baahan yahay wuxuu tagayaa awslaanta bihoraha ama immigration-ka meeshaas looga soo saarayaa shaqo inkastoo dhowr week sugayo kadibna saas uu ku shaqo gali karaa. haddii aan fiirino saacadii Jarmalka inta looga shaqeeyo waa kan mar kale Yaxya inoo waramaya. saacadii mushaarka ugu yar ee lagu shaqeeyo waa 12 euro iyo 82 senti ka badan qofku wax ku shaqeyn kara laakiin wixii ka yar ku shaqeyn karin. Yaxya waxaan weydiiyay qofka Janiska uu shaqo ku heli karo intee la eg tahay markii la joogo Jarmalka. dalka Germany dhanka shaqooyinka fursadda shaqo helidda aad bay u sareysaa waa 99% inuu qofku shaqo helo markuu joogo magaalooyinka waaweyn sida Berlin, Frankfurt Main iyo Hamburg iyo magaalooyinka kale oo waaweyn markuu magaalooyinka yaryar joogana tuulooyinka maadaama warshado badan iyo shirkado waaweyn ay ku oolin waa 50% inuu shaqo helo marka magaalooyinka waaweyn baa ka fursado badan
magaalooyinka yaryar. waxaan kaloo saaxiibka Yaxya weydiiyey dhanka guryaha ama deegaanka sida uu ku yahay Germany marka la joogo. kaaga warramo dalka Germany dhanka guryaha waxaan u kala qaadaynaa magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka yaryar. magaalooyinka yaryar guryaha horaa loo helaa waa raqiis waana guryo waaweyn oo waasic ah maadaama dad badan aysan ku nooleen magaalooyinka yaryar. magaalooyinka waaweyn guryuhu waa adag yihiin in la helo oo muddo ku qaadanaysa waana qaali marka qaarkoodna waasic ma noqdaan oo ma weynaadaan yani dhexdhexaad ama guryo yar oo ciriiriya. inta haddaan kaga gudubno jaaniska iyo fursadaha ka jira Germany haddaan dhugno dhanka caqabadaha ay dadku wajahaan gaar ahaan waayadii dambe Soomaalidu ay wajahaysay waxaana ugu warramay Yaxya sababaha keena iyo duruufta dhalisa arrimahaas. dhalinyarada Germany ku nool ama dhalinyarada qaxootiga waxaa laga soo sheegaa dhibaatooyin badan sida gacan qaad iyo toorey iyo waxyaabo saas oo la halmaama. maxaa keena afar baa u kala qaadayna. tan koowaad waxa weeye dhalinyarada oo sharci la'aan dalka Jarmalka ku noqota aad bay dhalinyaradu uga dadka sharci la'aanta ku noqda arrintaas uga dayriyaan welwel badan fikir badan hurdo la'aan iyo waxa weeye dadka asaaga sharci waa la siiyay ma lagu siiyo iyo wax saasi adigu welwel bas jira. waxyaabahaasi way keenaan dhalinyarada isku buuq way ku keenaan. labo qofku xanuun rabaaniya oo ilaahay u keeno sida xanuunka waalida oo kale. xanuunka waalida qof markuu ku dhaco haddii wax walba ka filo mataqaanaa dalka Jarmalka xanuunada qaar bay waxay ula tacaalaan qaabka ah waa waalida dhaqantee magaaladiisa dadkiisa dhex joogo bay isbaxaan kadibna dee markaas dadkiiba qofkaasi dhib kala kulma sida inuu tooreeyo ama inuu wadada gaari isku dhigo ama waxsaas oo kale. tan saddexaad waxa weeye qofka oo balwad leh oo khamri iyo xashiishad iyo waxaas isticmaala isna waalidii waxba kala duwanaa oo markuu marar badan waxaas isticmaalo waaga dambe inuu gacan qaado way u fududahay sababtoo maskaxdiisa ma joogto. tan afraad waxa weeye qofka oo hamiyo badan isku xira bula weliba waqti dhow hamiyada waa haddaad hami leedahay way fiican tahay laakiin dee waqti dheer inaad ka kala dhigto balaan u kala yeeshid baa fiican. qofkii isla 2 sano ama 1 sano hamigaaga dhan ha ku hirgalo kadib markuu hirgeli waayo qofkii ama suu filaya xaaladii noqon weydo isla hadal iyo buuq waa ku furmaya. xaaladahaasna way keenaan dhibaatooyinka dalka Jarmalka dhalinyarada ku dhaca. afartaas baan u kala qaaday. muuqaalkeen iyo warbixinteen intaas ku ogyahay waxaan filayaa wax badan aad ka fahantay xaaladda Jarmalka xoog badan aad ka heshay fadlan haddii halkaas soo gaartay waxaan kaa codsanaa muuqaalkeen like tiraada soo kale subscribe anigu sharafta